walaa xoogan ayaa ka dhashay xaaladda ayaa ku xumaatay Taiwan iyo Somaliland oo khalkhal wajahaya gaadiidka dagaalka ee shiinuhu shalay keenay Muqdisho oo loo jiheynayo Sool iyo Sanaag. taliyaha jabhadda SSC ee fadhigeedu yahay Boohoodle Faysal Falaalug oo Muqdisho looga yeeray laguna wareejinayo hubkan 90% iyo Somaliland oo afka furatay qarkana u saaran inay ka noqoto xiriirka ay Taiwan la samaysatay. waa galwareedii warbixinteena maanta oo aanu ku eegayno ujeedada hubkii shiinuhu Muqdisho keenay iyo xaaladda Somaliland iyo Taiwan oo isla isu bahaysanayo. safarka taliyaha jabhadda SSC ee Muqdisho ayaan sidoo kale eegi doonaa, balse marka hore sheer gareeya muuqaalka leeytay dhaca oo beejikana galwareeda soo falow gareeya wahagaag aan ku bilaabo. hadalhayn ballaaran ayaa ka dhalatay hubkii ay dowladda shiinuhu gelinkii dambe ee shalay ku wareejiyay dowladda federaalka Soomaaliya. hubkaana uu isugu jiray gaadiid dagaal iyo sidoo kale tangiyo, waxayna Somaliland walaa xoogan ka muujiday ujeedada shiinuhu u keenay hubkan magaalada Muqdisho. war ka soo baxay Somaliland ayaa waxaa walaa xoogan looga muujiyay hubkan uu shiinuhu keenay magaalada Muqdisho. Somaliland ayaa sheegtay in hubka uu shiinuhu siiyay Soomaaliya uu yahay dandaansi lagu carqaladaynayo xiriirka Somaliland, Taiwan iyo Mareykanka. agaasimaha madaxtooyada Somaliland Maxamed Cali Bile ayaa yiri qalabka military ee shiinuhu u diray ciidanka Soomaaliya xilli uu madaxweynaha Somaliland booqasho ku joogo Mareykanka ma ahan wax iska yimid, balse waa dandaansi lagu carqaladaynayo xiriirka Somaliland ee Taiwan iyo xiriirka kala dhexeeya Mareykanka. walaaca suufood saaray Somaliland ayaa ka dhashay kadib markii dowladda Shiinaha ay go'aan ku gaartay inay Soomaaliya ku wareejido hub tiro badan kaasi oo ugu talagashay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya u adeegsadaan sugidda ammaanka qaranka. Somaliland ayaa walaa xoogan ka qabatay in isbahaysiga Soomaaliya iyo Shiinuhu uu caqabad ku noqdo xiriirka ay Taiwan la wadaagto. sidoo kalena wararaan helina ayaa sheegaya in hubka shiinuhu keenay magaalada Muqdisho loo wado in la geeyo magaalada Boohoodle, halkaasi oo la qorsheynayo in taliska jabhadda SSC oo si weyn uga soo horjeeda Somaliland ay magaalada Muqdisho kula wareegaan hubkan. taliyaha jabhadda SSC ee deegaanka Boohoodle Faysal Falaalug ayaa la qorsheynaya inuu maalmaha soo aadan soo qaado magaalada Muqdisho iyadoo dowladda Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan oo halkan kula kulmayo. sidoo kale waxaa la qorsheynayaa in magaalada Muqdisho lagu siiyo Falaalug iyo jabhadiisa 90% hubka ay dowladda Shiinaha magaalada Muqdisho keentay. inta hartayna waxaa loo qaybinayaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Shiinaha ay ka go'an tahay inay hadda si toos jidgooyo uga dhigtaan xiriirka ay Somaliland iyo Taiwan wadaageen. Somaliland waxay ka mid tahay Soomaaliya, balse waxay soo aqoonsan tahay dal ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale, halka Taiwan iyana ay ka mid tahay Shiinaha, balse ay iyana sida Somaliland soo aqoonsan tahay inay tahay dal madax bannaan. labada dowlad ayaa si weyn uga xanaaqaya xiriirka Taiwan iyo Somaliland. arrintaasi ayaana keentay soo dhawaanshaha Shiinaha iyo Soomaaliya xilligan iyo iskaashiga labada dhinac oo ku jihaysan sidii Somaliland iyo Taiwan loo kala furfur lahaa xiriirkoodana loo burburin lahaa, maadaama ay arrintaasi caqabad ku noqonayso midnimada labada dal iyo jiritaanka gobollada ay ka kooban yihiin. Somaliland walaaca ay hadda qabto ayaa waxaa ka mid ah in Mareykanku uu ka diiday inuu ictiraafo xilli ay madaxweynaha iyo wafdi la socda ku sugan yihiin magaalada Washington. sidoo kale arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli uu curdan yahay Shiinaha, Taiwan iyo Somaliland xiriirka ka dhexeeya arrintaasi oo noqon karta in welwel xoogan oo soo food saaro Somaliland. haddii isku daydo Somaliland inay si weyn uga hor timaado abaabulka ciidan ee ka socda Boohoodle, waxay taasi kalifi kartaa in Soomaaliya iyo Somaliland uu dagaal ka dhex qarxo, iyadoo dunidu hadda ay maar u leedahay dagaalka Ukraine iyo Ruushka kaasi oo ka bilowday isaysiga gobollo ku yaala xuduudda Ruushka iyo Ukraine. shargariya warbixinta qaybta faalada nagu wadaag aragtidina tan iyo kulanti dambe nabadgeliyo.